Maanta waxaan ka warbixinayaa qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo goobahooda taariikhiga ah. Yurub waa qaarad aad u hodan ku ah taariikh, dhaqan iyo ilbaxnimo. Dalal badan oo Yurub ah waxaa ku yaala dhismooyin qadiimi ah iyo meelo dalxiis oo caan ah, kuwaas oo soo jiita dad badan sannad kasta. Dalalka aan ka hadlayo waa Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Giriiga. Talyaaniga waa dal taariikh dheer leh. Caasimadiisu waa Rooma. Goobaha ugu caansan waxaa ka mid ah Colosseum oo ahaa goob dagaallo hore ka dhici jireen. Fooramkii Roomaanka oo ahaa xaruntii nolosha dadka. Taawarka Biisa. Magaalada Venice oo ku taala biyo dushood. Talyaaniga wuxuu muhiim u yahay taariikhda ilbaxnimada iyo farshaxanka. Faransiiska waa dal caan ku ah dalxiiska iyo dhaqanka. Caasimadiisu waa Bariis. Goobaha ugu caansan Taawarka Eiffel. Madxafka weyn ee farshaxanka. Qasriga Versailles. Kiniisadda weyn ee Notre Dame. Faransiiska waa meel aad u soo jiidasho badan oo dalxiis. Jarmalka waa dal isku dara taariikh iyo horumar. Caasimadiisu waa Berliin. Goobaha muhiimka ah Albaabka Brandenburg. Darbigii Berliin. Qalcadda quruxda badan ee buuraha ku taala. Kiniisadda weyn ee Cologne. Jarmalku maanta waa dal aad u horumarsan. Giriiga waa dal aad u qadiimi ah. Caasimadiisu waa Athens. Goobaha caanka ah Acropolis oo ay ku yaalliin macbudyo hore. Olimbiya halka ay ka bilaabatay ciyaaraha Olombikada. Jasiiradda Santorini oo aad u qurux badan. Giriiga waa meesha ay ka soo bilaabmeen dimuqraadiyadda iyo falsafadda. Gabagabadii, Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Giriiga waa dalal leh taariikh qani ah iyo dhaxal aad u muhiim ah. Goobahan taariikhiga ah waxay muujinayaan ilbaxnimada Yurub, waxayna soo jiitaan dalxiisayaal badan sannad kasta. Mahadsanidin.